asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti waacaan oo wanaagsan. qodobada warkeena maantaan idinku haynana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha wadanka libiya oo gaadhay wadanka turkiga, wadanka jaynaha oo soo gaadhsiiyey wadanka libiya maraakiibu sida caawimaad. qodobo kale ayaa raaci doona. daawadayaal kusoo dhawaada jalankan. hadduu yahay daawada markii kugu horeysay, fadlan subscribe sar. Initiating system 1. System 1 loaded. mar kale kusoo dhowow daawade qodobada warkaasoo faahfaahsan. taariikhdu maanta waa 2020 bisha 6 afarteeda. ra-iisul wasaaraha wadanka libiya fayas al saraj ayaa gaadhay wadanka turkiga, wuxuuna la kulmay madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan. madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo maanta khudbad jeediyey wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan wadanka libiya. sidoo kale ra-iisul wasaaraha wadanka libiya fayas al saraj oo hadlay wuxuu yidhi ma ogola buu yidhi xaftar iyo xoogaga taageera buu yidhi sida wadanka ruushka, wadanka imaaraadka carabta iyo sacuudiga iyo sidoo kale wadanka masar wax wada hadala. sidoo kale inuu diiday wadahadal uga soo yimi xogayaha qaramada midoobay antonio guterres kaas oo ahaa in la bilaabo xibad joojin. sidoo kale haddii aan eegno iminka wadanka libiya, wadanka jaynaha ayaa usoo diray maraakiib kuwaasoo ah daawooyin iyo sidoo kale qalabka laga hortago coronavirus. wadanka libiya waxaa la sheegayaa iminka xanuunka covid-19 inuu fara ba-an ku hayo, iyadoo ay sii kordhayso awoodaha ku dagaalamaya wadanka libiya. jaynaha ayaa soo gaadhsiiyey maraakiib kuwaasoo sida daawooyin iyo agab caafimaad, wuxuuna soo mariyay wadanka tunuusiya. saaka subaxnimadii waxaa la sheegaya diyaaradaha droniska ee wadanka turkiga inay duqeeyeen guri ay ku jireen 12 qof, waxaana ka badbaaday 1 qof oo keliya. wuxuuna sheegay inay dhinteen 12 qof kuwaasoo ah faamiligiisa. wiilkanoo lagu magacaabo maxamed al sari wuxuu sheegay inay dhinteen 12 qof kuwaasoo ah walaalihii. iminkana wadanka jaynaha waxaa la sheegayaa caasimada wuhan koonfurteeda in lasoo weeraray iskuulkaasoo lagu magacaabi jiray central primary school. waxaa la dhaawacay 39 arday iyo sidoo kale 2 askari ee ilaalinayay iskuulka. waxaa la sheegay wiil toorisita inuu soo weeraray. dhammaantoodna waxaa la sheegay in lagu dabiibayo cusbitaal ku yaala magaalada wuhan ee caasimada wadanka jaynaha. iminkii wadanka turkiga, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi turkiga ayaa sheegay dagaal ooga xaftar inaanu ogoleyn wax wada hadala. sidoo kale awoodaha taageera sida imaaraadka carabta, dalka masarka, sacuudi carabiya iyo ruushka sidoo kale inayna ogoleyn wax wada hadala taasoo laga sameeyo libiya. iminkana aan eegno xagga iyo wadanka maraykanka. mudaharaadadii ka bilaabmay wiilka madowga kaasoo lagu magacaabi jiray george floyd ayaa gaadhay dhowr iyo 30 gobol kuwaasoo ka mid a wadanka maraykanka. sidoo kale waxay gaadheen wadamo ka mid a yurub iyo wadamo jaara sida wadanka faransiiska caasimadiisa baariis. waxaa la sheegay mudaharaadadan inay ka cadhoodeen dil wiil loo geystay 2014 wadanka baariis taasoo la xidhiidha george floyd. waxaa la sheegay magaalada baariis inay bilaabeen mudaharaado dadkii madowga ahaa kuwaasoo ku dhaqan wadanka faransiiska. iminkana aan eegno xagga iyo wadanka bakistan. 26 May waxaa burburtay diyaarad rakaab ahayd, waxaana dhintay 97 qof. waxaana la sheegay inay ciladu ah xagga injineerka sameeyey, sidoo kalena bayloodku uu wargeliyey isla garoonkii uu ka kacay. wiil ka badbaaday kaasoo lagu magacaabo maxamed ayaa ka sheekeeyey qisadii qabsatay. wuxuu sheegay inuu arkay meel kastoo gubanaysa iyo sidoo kale wuxuu wacay faamiligiisa iyo asxaabtiisa, balse waa wiilka keliya kaasoo nasiib u yeeshay inuu ka badbaado dayaarad ay ku dhinteen 97 qof. daawadayaal waxaan warar idinka haynay dhammaanba daafaha dunida caalamka wanagaynta. intaan ka kulmi doono mid lamida waxaa idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.